soo sheekay taariikhoodii iyo wixii la soo maray waxa weeye haweenku waa laf dhabarta qaranka ninkii maangaabuna ma gartay qofkii garaad leh baa gartay hooyo maxay tahay hooyo waxa weeye waa hooyga lagu soo hoydo ummadda ilaahay waa luqado badan bay u yaqaaniin minka caruurtu ku beeranta waa minankaas waa meesha lagu soo wada hoydo oo lagu soo wada hirto waxa weeye ragga iyo naagaha kulli gurigaasaa laga soo wada baxay guriguna waa guri haween oo meeshaasaa laga wada yimid ragga iyo caruurtu aniga naagaha haweenka ay la weeyihiin raggu kuma jiro ragga anigu sidaydaba caruurtaan ku xisaabiyaa sidii maanta dhan caruurtu u ordayso oo markay soo daasho darinta hooyada agteeday ku soo dhacdaa ninkuna siduu maanta dhan u ordahayo wuxuu ku soo dhacaa habarta darinteeda caruurta iyo odagu aniga waysaga kaymid meesha lagu soo hirto waa meeshii laga soo wada baxay waa minkii waa makaankii hooyada ku yiilay halkaasaa rag iyo naaga ka wada yimaadeen haweenku laba marxaladood baan soo marnay marxaladii gobonimo doonka iyo marxaladii dawladii kacaanka labadaas marxaladood baan soo maray waagii hore oo leegadii waa la wada ogaa wixii wadanka kiciyey oo wadanka kor u qaaday waxay ahaayeen haweenka anoo gabar yarahan joogay raggaas haweenka way ka baqi jireen ninkii wax yar qisada wadanka ka leexda naagu waa dili jireen waa la garaaci jiray sidii waxay ayagu leeyihiin waa laga baqi jiray haweenka waagii leegadii waagii kacaankii waxaa dhacday raggii kacaanka hogaaminayay kulligood waxay garteen inay haweenku xubinta ugu qiimo badan bini aadanka haweenka inay ku taalo hoygii bini aadanku waa hooyadii waa qiimeeyeen waa laga faa'iidaystay dhowr iyo 20 sano oo kacaankaasu jiray hawshii la qabtay hooyaa laf dhabar u ahayd haddaan haweenku kicin wadaniyadu haweenka yay ku badan tahay iyo raggu waa quwadaas ilaahayna siiyey tartan ma jiro waa hogaankii qaranka waa hogaankii ummadda ragga tartan kule ma jirno laakiin haweenku waa quwad ninka maangaabkaa uusan garanaynin waxaa jirta maanta aan joogno waa maalintii waa kacaankii saddexaad baa maanta la taagan yahay kacaanka saddexaad waxaa weeye haddii maanta calankeenii la bedelay oo calan si loo keenay oo maanta inta calankeeniiba muran ku jiro gabdho waa kacaankii saddexaad maanta ayadoo dad barlamaan sheeganayaa joogaan oo dad dawlad sheeganayaa joogaan oo dad muxuu ahaay maamul goboleedyo sheeganayaan maanta haddii lagu soo dhejiyey darbigii shirka calankeenii oo siloon macnaheedu waxaa weeye waxaa nala ogaaday waxaan nahayba inayna jirin oo maanta wax alla wixii nala ku dayo in nala meel marin karo wax ka xuno badan baa nala ku dayay waa nala marsiiyey